kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal ku soo dhawaada wararkii aanu idinka haynay caalamka maanta waa maalin sabti ah oo labadii bishii shanaad ee sanadka 2020 warka waxaanu ku bilaabaynaa wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo bandhigtay wadahadal khadka telefoonka ah oo dhex maray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhaxal sugaha dalka Sacuudiga amiirka lagu magacaabo Amiir Mohammed bin Salman. wakaalada ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu ugu hanjabay amiirka Sacuudiga in dalka Sacuudiga uu yareeyo batroolka ay soo saaraan hadii kale uu talaabo ka qaadi doono. wakaalada oo xustay in 4 ilood oo kala duwan ay warkan u xaqiijiyeen ayaa sheegtay in Trump uu aad uga warwarayay qiimaha batroolka dalka Mareykanka oo aad hoos ugu dhacay taasina ay keentay inuu ka dalbado dalka Sacuudigu inay yareeyaan batroolka ay soo saaraan si taasina ay u keento in batroolku uu ku yaraado suuqyada si markaa uu sare ugu kaco qiimaha batroolka dalka Mareykanku. madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu telefoonka kula hadlay Amiir Mohammed bin Salman oo dhaxal sugaha dalka Sacuudiga isagoo ugu hanjabay in hadii ay yareyn waayaan batroolka ay soo saaraan oo isaguna waa Trump oo ciidankiisa kala bixi doono dalka Sacuudiga iyadoo la og yahay in Mareykanku uu ku leeyahay dalka Sacuudiga saldhigga ugu weyn bariga dhexe isla markaana ciidamada Mareykanku ay ilaaliyaan dalka Sacuudiga. dadka siyaasadda ka faalooda iyo dad badan oo Sacuudiyiin oo arintan ka falceliyay ayaa sheegay in dalka Sacuudigu uu aamino awoodiisa isla markaana hadii loo baahdo uu ciidamada Mareykanka ku bedeli karo kuwa Ruushka iyo Shiinaha oo xifiltan weyn uu ka dhaxeeyo Mareykanka intii marba uu Mareykanku u hanjabi lahaa dalka Sacuudiga. iyadoo muddooyinkii u dambeeyay la isla dhex wareegayay inuu dhintay hogaamiyihii dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa wakaalada wararka dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa soo gabagabaysay shakigii ku gadaana xaaladda guud Kim Jong oo muddooyinkii u dambeeyay la sheegay inuu geeriyooday kadib markii maanta oo sabti ay soo bandhigeen muuqaal fiideo oo cusub kaasoo ka muuqday hogaamiye Kim Jong. Mr. Kim Jong oo warbaahintu sheegtay inuu dhintay kadib markii uu galay qalliin ayaan ka soo muuqan warbaahinta muddo 3 toddobaad taasoo sii adkaysay shakigii laga qabay inuu geeriyooday. Mr. Kim ayaa maanta la soo bandhigay isagoo aad u caafimaad qaba isla markaana xadhiga ka jaraya warshad cusub oo dalka laga hirgeliyay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa warbaahinta ugu badan ee buunbuunisay isla markaana aadka uga hadashay dhimashadiisu ay ahayd warbaahinta dalka Mareykanka iyadoo waxyaabihii shakiga badan dhaliyay ay ka mid ahayd kadib markii uu ka maqnaaday oo aanu iman ama aanu ka soo xaadirinba munaasabadda xuska asaasihii dalka Kuuriya ee Kim Il-sung oo ku beegneed 15kii bishii la soo dhaafay ee Abriil. munaasabadda waa mid miisaan culus oo siyaasadeed ku leh dalka Kuuriyada Waqooyi. dhinaca kale xukuumadda Shiinaha ayaa si adag u beenisay in iyagu ay sameeyeen fayraska koronaha. Shiinaha oo ka jawaabayay eedan uga timid madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo dalka Shiinaha dhowr jeer oo kala duwan si kulul ugu dhaleeceeyay in Shiinuhu gacantooda ku sameeyeen fayraskan ay adduunka ugu dhinteen 10,000 oo qof ayaa Shiinuhu xusay in aanay arinta marnaba iyagu sameeyeen. Shiinaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaabka ay madaxda Mareykanku uga hadlaan xanuunka coronavirus-ka iyo eedeynta ay mar walba u soo jeediyaan dalka Shiinaha oo ay ku tilmaameen mid aanay ka fiirsan. Shiinaha ayaa u soo bandhigay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO inay ku sameeyaan baadhitaan guud oo ku saabsan halka uu xanuunkan ka soo asaasmay. inkastoo hay'adda sirdoonka dalka Mareykanku ay sheegeen in fayraska koronuhu aanu ahayn mid ay dad sameeyeen ee uu yahay mid iskiisaga bilaabmay ayaa haddana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhowr jeer ku celceliyay inaan shaki kaga jirin in fayraskan koronaha lagu sameeyay mid ka mid ah xarumaha cilmi baarista ee magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. dalkan Sweden ayaa isaguna ka mid noqday wadamada ku fikiraya inay dalbadaan in la baaro halka uu asal ahaan ka yimid fayraska koronuhu iyo inuu yahay mid gacanta lagu sameeyay iyo mid iskiisaga bilaabmay. arrintan oo dabka ku sii shidi doonta xiriirka ka dhaxeeya dalka Shiinaha iyo wadankan Sweden oo muddooyinkii u dambeeyay kacsanaa.
wasiirka caafimaadka dalkan Sweden ayaa sheegtay in marka la soo gabagabeeyo dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus-ku inay muhiim tahay in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo lagu ogaanayo halka uu asal ahaan ka yimid fayraskan iyo sidee ayuu ku fiday iyo cidda ka mas'uulka iyo sida ay arrintan ku dhacday. wasiiradda ayaa sheegtay in dalka Sweden ay dhibaato weyn ka soo gaadhay xanuunkan aan la garanaynin ama garanwaaga isla markaana loo baahan yahay in adduunweynuhu ay iska kaashadaan sidii loo ogaan lahaa halka uu ka yimid iyadoo ay baaritaankan ka qayb tahay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. wasiiradda arrimaha dibadda ee Sweden Mrs. Ann Linde ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay waajib tahay in hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay baadho halka uu fayraskan ka yimid asal ahaan isla markaana arrinkan si adag loogala hadlo dalka Shiinaha. waayahay dawdeer haddii aynu eegno xanuunkan coronavirus-ka iyo wararkii ugu dambeeyay wadanka Sweden iyo dadkii u dhintay iyo dadka uu ku dhacayba xanuunka coronavirus-ka ee dalkan Sweden maanta oo Sabti ah 2 bisha shanaad ee sanadkan 2020 hay'adda caafimaadka ee Sweden ayaa sheegtay inay dhinteen maanta 16 qof taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ilaa imika u dhimatay xanuunkan 2669 qof. hay'adda ayaa sheegtay in dadka uu xanuunkan ku dhacay ay gaadheen maanta 22,082 qof taasoo ka dhigan in maalin walba ugu yaraan 500 ilaa 700 oo qof oo cusub uu xanuunkan ku dhaco dalka Sweden. khabiirka xanuunada faafa isla markaana madax u ah hay'adda caafimaadka ee Sweden professorka lagu magacaabo Tinel ayaa sheegay inay u eg tahay arrin lagu degdegay haddii la yiraahdo Sweden way xakamaysay xanuunka coronavirus-ka isla markaana laga yaabo in xanuunkan uu sii socdo 2 sanadood ee fooday nagu soo haya. Professor Tignell ayaa sheegay in halkii qof ee uu ku dhaco xanuunkan dalka Sweden ugu yaraan qaatin karo hal qof oo kale. waayahay daawadayaal iminkana haddii aynu eegno xanuunka coronavirus-ka iyo sidii uu saameeyey dalxiiska caalamka. bartamaha magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka oo ka mid ahayd goobaha ugu quruxda badan caalamka loona dalxiis tago ayaa u muuqata iminka mid laga guuray oo aanay haba yaraatee dad meesha joogin. sida ay muuqata barxadan iyo goobahan oo caanka dalka Ruushka ayaa san walba gaar ahaan xiliyadan oo kale waxa dalxiis ku iman jiray malaayiin qof oo caalamka isaga kala yimid laakiin xiligan lagu jiro xanuunka coronavirus-ka waxa ka muuqda raadkii uu kaga tagay kaasoo ah inay joogsadaan dalxiisayaashii caalamka isaga kala gooshi jiray taasoo sidoo kale dhaawac weyn soo gaarsiisay dalxiiska wadamo badan. waxaa iyaduna ka mid ah goobaha dalxiiska ee uu sida xun u saameeyey xanuunka coronavirus-ku magaalada Pisa ee dalka Talyaaniga oo ku yaalo dabaqa ama fooqa lagu magacaabo Pisa Tower kaasoo u samaysan ama loo sameeyey qaab farshaxan oo aad u sareeya isla markaana ay dadku u soo dalxiis tagaan. magaalada Pisa ee dalka Talyaaniga ayaa la sheegay in sanad walba ay dalxiis u yimaadaan 5 milyan oo qof kuwaasoo intooda badan u yimaada inay sawir ku galaan dabaqa ama fooqa caanka ee Pisa Tower. laakiin maanta dhammaanba waxaa xidhan goobta dalxiiska iyadoo dadkii iman jiray ay ka baqeen ama ay uga baqeen xanuunka coronavirus-ka awgii. ugu dambeyntii haddaynu dib ugu yaro noqono wadankan Sweden hay'adda ururka shaqaalaha wadankan Sweden ee loo soo gaabiyo magaciisa LO ayaa iyaguna cabasho ka muujiyay kooxo ay ku sheegeen inay yihiin naasiyiin oo sawir uu ka muuqdo calaamadoodu ku dhajiyay xarunta ururkan ee magaalada Stockholm iyadoo afayeenka ama xogayaha ururkani ay u sheegtay booliska iyo warfaafinta in dadkaasi ay soo galeen xaruntooda isla markaana ay ku dhajiyeen boorkaas oo ay ku qoreen hadallo runtii iyagu markaa xaq jirnimo u muuqda oo shaqaalaha ay ku kicinayeen. xoghaynta ayaa sheegtay in booliska arrintan ay gaarsiiyeen isla markaana sharciga ay la tiigsan doonaan. waayahay daawadayaal intaa waxay noogu dhammaaday wararkii caalamka oo idinka imanayay stuudiyahayga wadanka Sweden. warkana waxaad la socodsiinayay anigoo Barkad Cabdilaahi Maxamed. daawadayaal inta aynu dib u kulmayno waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan channelkayga YouTube-ka Somali TV Sweden oo aad ka heli doontaan warar aad u xiiso badan oo ku saabsan wadankan Sweden iyo guud ahaan caalamka iyo waliba dadka Soomaalida. inta aynu dib u kulmayno dhamaantiin waxaan idinkaga tegaynaa nabad
nabadgelyo daawadayaal inta aynu dib u kulmayno waxaanu idinka codsananaa inaad kusoo biirtaan janaalkayaga youtube-ka Somali TV Sweden oo aad ka heli doontaan warar aad u xiiso badan oo ku saabsan wadankan Sweden iyo guud ahaan caalamka iyo waliba dadka Soomaalida inta aynu dib u kulmayno dhamaantiin waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo